munaasibadan oo si heer sare loo soo agaasimay kana qabsoontay gudaha magaalada Xaaji Saalax ee gobolka Daadmareed ayaa ujeedkeedu ahaa sidii loo bogaadin lahaa loona sabootii lahaa dufcadii toddobaad ee sanadkan ka baxday galaaska afraad ee dugsiga sare ee degmada Xaaji Saalax kuwaasoo kaalinta afraad ka galay 10kii dugsiga ee ugu dhibcaha sareeyay sanadkan dugsiyada sare ee Soomaaliland waxaa sidoo kale munaasabadan lagu shaaciyay in dugsiga sare ee degmada Xaaji Saalax uu haatan noqday dugsi boodhan ah waxaana munaasabadan ka soo qayb galay maamulka gobolka Daadmareed ka degmada Oodweyne madaxda ciidanka bilayska mas'uuliyiinta degmada Xaaji Saalax xildhibaano ka tirsan aqalka baarlamaanka salaadiin odayaal wax ka rad waalidiin arday macallimiin qurbo joog iyo mas'uuliyiin ka socotay dowladda deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaana ugu horeyntii munaasabadan ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Xaaji Saalax Cali Muuse Faarax maanta halkan waxaynu joognaa weeye ardaydeennii ka baxday iskuulka sekondariga ayaa xafladdan maanta qaabilsan tahay oo Soomaaliland oo dhan noqotay iskuulka afraad aad iyo aad baan macallimiintii iskuulka wax ka dhigaysay qurbo joogii lacagta ku bixinayay guddida wadajir wasiir Shukri iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareedba aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Daadmareed Maxamuud Cali Axmed Jubba duqa degmada Oodweyne Ibraahim Qazaar Roble xildhibaan Barkhad Maxamed Hurre komishineer Mukhtaar Cabdi Jaamac qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo qurbo joogta gobolka Daadmareed iyo marti sharaf kale oo tiro badan oo iyaguna hadalka iska daba qaatay ayaa ku dheeraaday maraaxilkii kala duwanaa ee dugsiga sare ee Xaaji Saalax soo maray iyagoo sidoo kalena halkaas ku bogaadiyay isla markaasna ku sabootiyay ardaydii sanadkan ka baxday dugsiga waan hambaliyaynayaa ardayda maanta guusha taariikhiga u soo hoysay degmada Xaaji Saalax aad iyo aad baan u hambaliyaynayaa ee gashay gradekii afraad ee iskuullada sare ee foonfoorada Soomaaliland ka gashay aad iyo aad baan u hambaliyaynayaa 2013 baa iskuulka la aasaasay dugsiga sare guul taariikhiya oo ixtiraam leh ayay ardaydaasi soo hoysay aad iyo aad baan u bogaadinayaa dugsigii sare iyo dugsigii hoose dhexe ayaa iyaguna jooga waxa loo soo maray dadaal badan iyo juhdi badan oo lagu bixiyay hadday macallimiinta tahay hadday maamulka tahay hadday qurbo joogta tahay hadday qolqol joogta tahay waxa weeye bil kasta oo soo gasha 12 bilood sanadka bil walba waxa lagu bixin jiray $2,590 insha Allah dhammaan dadkan ka soo wada qayb galay hadday tahay dadka magaalada iyo deegaanka iyo dadka waftigaaba meel kasta ka yimaadeen anoo aan tiro ku soo koobi karaynin waa mahadsantiin Allah idin barakeeyo runtii dhaqaalaha ay ku baxay halkan ay ku yimaadaan waa arrin horta runtii mucjiso ah in intay bulshada abaabusho ay ka fikirto mashruuc noocan ah inay fuliso oo ay waliba joogtayso mashruucan sanadkii $25,000 baa ku baxa runtii waa dhaqaalo culus waa dareemi kartaan in la joogteeyo waan uga mahadnaqayaa cid kasta oo maaragtay maanta ka qayb qaadatay inaanu mashruucaas istaagin munaasabadan maanta qalijabinta ah ee aynu isugu nimi ee ardaydii ka baxday foonfoorka loogu samaynayo xafladda kuna lifaaqan tahay dugsiga sare oo marka hore dadka deegaankii uu ku tabci jiray oo halkaas soo gaadhsiiyey maantana aanu u bedelay boarding oo aanu doonano inay xildhibaanada maayirka qolada waxbarashada inay nagala jaraan xadhigga aanu doonano waxaa noogu suntan waxbarashada maadiga ah gaar ahaan dhallinyarada la yidhaahdo wadajir baa noogu suntan iyaga iyo saaxiibadood wax dibadda jira iyo wax gudaha joogaba dhallinyarada maanta halkan ka qalin jabisay si aad iyo aad iyo aad iyo aad la isugu yimi loo hamiyadeeyay loo soo dhaweeyay farxad bay maanta u tahay mahadda labaad iyo mudnaanba waxaanu siinaynaa dadka degmadan maanta u soo tacjiilay ee danteeda iyo wanaaggeeda u soo qabtay ee ilaa caasimad ku-xigeenkii gobolka qaaliga ee Daadmareed madaxdiisii iyo maanta waxbarashadiisiiba ay halkan marayso aad u sii kala guri maayo hore raggii hore u soo maray intaba aad iyo aad baanu mahadda labaad iyo mudnaanba u siinaynaa Soomaaliland bay afraad u gashay waxaan doonayaa ardayda dambeena inay dadaalaan oo ay ku daydaan ardaydii hore ee ka baxday iskuulkan tacab fara badan baa la idin galiyay ardaydayda hadhamaahan waan ammaanayaa ayaga sii gaharabaahan u salaamayaa qoladayada qurbo jooguna
waan xusuustaa markii naloo soo gudbiyey ee la yidhi bishii intaas ayay u baahan yihiin mucallimiinta salarigoodu waan xusuustaa oo intaannu shirnay ilaahay khayr ha siiyee nin aan imminka halka joogin xasan dhidin la yidhaahdo ayaa yidhi war intaynu bilbil bixinayno aynu dhowr bilood ilaa 6 bilood israacinno waxaannu u nimi dhallinyarada ardayda ee dugsiga sare ee qalinjibintoodii laga sheekeeyey heerka ay ka gashay dawladda Somaliland iskuullada dugsiga sare inaanu la qaybsanno reer Xaaji Saalax farxadda iyo guusha ay soo hooyeen waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada yarar ee reer Xaaji Saalax ee dugsiga sare ka qalin jabisay ee dhammaan meel sare wada gashay oo aan hore loo arag sidaas oo kale u gala kaalinta u sarreysa Somaliland marka la eego intaasoo arday oo aan kala hadhin oo halkaa wada galay waxaan u malaynayaa kaalmo hore waa la galay laakiin arday sidaa isu wada raacda hore umaynaan arag ardayda loogu xafladaynayaa waxaa la sheegay sidii loo sheegay waxay galeen kaalinta afraad ayay ka galeen dhammaan Somaliland intay ka tira leeg tahay ayay ka galeen kaalinta afraad waxaa kaloo mucjiso labaada inay 23 arday oo ka midi ay ku baxeen ee balaas inta kalena ay ku baxeen ee caadiya iyo B balaas iyagoo tiradooduna ahayd 27 waa mucjiso yara kale oo labaad waxaan leeyahay Xaaji Saalaxow gaar ha isku saarin isku samro oo waxa weeye midnimadiina iyo walaalnimadiina ka shaqeeya taasi waa taa qodobka labaad aan doonayo halkan in laga xuso Muuse Saqadhi ma jooga Muuse Saqadhi wuxuu ka dhawaajiyay oo dawladda ka dalbanayay in iskuulkan secondary-ga lagu daro kabka caadiga loo soo daayo oo lagu daro iskuulada caadiga kabka la siiyo taasi way bilaabantay waxaana inoo bilaabay degmadu 2 xildhibaan oo awood labay ku leedahay baarlamaanka ilaahay ha barakeeyo midba waqtigiisu shaqaynaya oo waqtigiisa kashiis markay joogto halkii ay ku soo beegantana uu ka shaqaynaya wasiir Toorno ilaahay ha barakeeyo maalintii axadii waxay wada kulmeen xildhibaan Amiin Salama Kulul waxay ka wada hadlayeen war goboladii bari baan hogaaminaynaa degmadii Xaaji Saalax maxaad kabkii u haysataa wuxuu ballan qaaday wasiirku inuu ku darayo miisaaniyadda baladku ansaxsada waxa kale oo doonaya macallimiinta waxbartay ardayda iyo waalidiinta iyo cid kastoo ka qayb qaadatayba waan bogaadinaya waan xaalan leeyahay waa guulaysateen cid kastoo ka qayb qaadatay guddida wadajir qurba joogta iyo qolqol joogtaba iyo waalidiinta iyo macallimiintaba waxa guul iyo macaasha wixii ay ku tabcayeen iyo midhihii ay beereen oo soo baxay oo la cunay waxaan idin sheegayaa dowgu wuxuu yahay dhallinyarada aabbayaasha hooyooyinka nabadgelyada ha lagu ilaaliyo nabadgelyada ha lagu ilaaliyo dhirgeedkaa la hadhsanayo waa la beeray soo maaha ardayda iyo nabadgelyadaba beera waxaan xusayaa ardaydaas soo qalin jabisay kolley waxay u socdaan waa jaamacado wixii deegaankoodu daawoodo way ka bixin doonaan wixii qaranku helo scholarshipna way ka qayb qaadan doonaan wixii kalena insha Allahu ta'ala degma ahaan inaynu ilgaara ku eegno ardayda aan laga hadhin oo aynu la raadino fursado waxbarasho oo aan ugu horeynayo oo la raadinayo oo aan ballan qaadayo in albaab kasta idila istaago haddii la yiraahdo waan ku dadaalaya degmada gobolka magaca u keenta degmooyinka kale way nagala qiimo badantay waana ka soo dhaweynaynaa dayrka maanta maayirku ku baaqay uu yidhi dayr baan anna u samaynayaa annana waan ku daba taaganay waxa weeye waxaa nagu qasaba inaannu ku daba taagnaanno waxqabadka 4 degmo GBLG-ga degmada weyn baa leh inay dhammaanna degmooyinka yaryar inay wax ka qabato oo dhaqaalaha iyo dhismaha intaba ka taakulayso waa waajib sababtoo ah xildhibaanadu waa halkii laga soo wada doortay dhammaantood waa laga soo wada doortay gobolku xagga nabadgelyada imanka aad baan u walacannahay alxamdulilah rabbil caalamiin ugu dambeyntiina waxaa halkaas abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey
ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ah. Sayid Maxamed Cumar, Sayid Darwiish, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, magaalada Xaaji Saalax ee gobolka Daadmareed.